maanta waxaan isaga warramaynaa insha Allah tabaaraka wa taala geed in badan ay isticmaasho Soomaalidu aanay garanaynin fawaaidda uu leeyahay iyo kayfiyada loo isticmaalo. geedkan baa waxaan weydiiyay dad badan oo nagu xidhan channelkeena Ilaaj Online. sheekhow naga soo waran geedka shadaabka loo yaqaano, sida loo isticmaalo iyo siyaabaha la isaga daweeyo, waxyaabaha la isaga daweeyo iyo fawaaidda uu leeyahay. sidaa darteed baan waxaan jeclaystay anigoo ah walaalkiin Farxaan Cabdullaahi inaan idinka warramo geedkan iyo fawaaidda uu leeyahay iyo sida loo isticmaalo iyo qaabka la isugu ilaajiyo. ka hor intaanan gelin ilaajinta iyo siyaabaha la isugu ilaajiyo, goorma ayaa la bartay geedkan? geedkan waxaa la bartay waqti hore ayay bini'aadamku barteen. dadkii ugu horreeyay ee bartay waxa loo yaqaanaa waa Giriigga iyo nimankii Roomaaniyiinta la dhihi jiray iyo Carabtii hore. waxaanu isticmaali jireen dibbu shacbi. dabbiga dhakhtarnimada maxaa taleeshiin hidaha iyo dhaqanka iyo ilaajka hidaha iyo dhaqanka bay isku ilaajin jireen. waxaanay u yaqaaneen kutubtooda markaad eegtid ay kaga warramayaan magacyo fara badan bay u yaqaaneen. marka laakiin shadaab ayuu u badan yahay magaciisa caamka ay Soomaalidu taqaanaa yahay. shadaabku waxaa loo isticmaalaa badanaa wuxuu eriyaa xasharaadka ayuu eriyaa. sidoo kale waxaana loo isticmaalaa aalaamul casabiya. markay qofku neerfaha xididada neerfuhu ay xanuunaan way u isticmaali jireen. sidoo kale waxay u isticmaali jireen iltihaabatul mafaasil waxa loo yaqaano, amaba af Soomaali ku dhahno kala goysiyada oo qofka xanuuna sida kuwa lugaha iyo gacmaha. mafaasishu wax kuwaas baa loo yaqaanaa, xubin xanuunka loo yaqaanaa. haddaba fawaaidda uu leeyahay baan ka sheekaynaynaa iyo qaabka la isugu daweeyo ilaajinta ruuxiga ah, ama sixirka ahaato ama jinka ahaato ama isha ahaato. intaba fawaaid fara badan buu leeyahay markii la tajribeeyey ee la baray. fawaaiddiisuna waxay ka mid tahay fawaaidada ugu caansan ay mucaalijiintu isticmaalaan. wax ka mid ah qaabkan markaad doonaysid qofku inuu isku ilaajiyo geedkan, sidan buu samaynayaa. awalan waxaad soo qaadaysaa geedkan baad soo qaadaysaa qayb ka mid ah ama gacan baad soo qaadaysaa in xoogaaya. markaad soo qaadid biyaad ku dhex ridaysaa. biyaha markaad ku dhex ridid 7 saacadood buu ku jirayaa ama 5 saacadood. ka bacdina waad ka saaraysaa. markaad ka saartid ayaad in khala ku daraysaa, ma khalkan cad ama khalka cas kolba ku doono. haddii aad weydidna in milixaad ku daraysaa biyihiisa. biyaha markaad ku walaaqdid ayaad waxaad soo qaadaysaa maro, waad ku miiraysaa ciidda iyo wasakhda isaga reebaysaa. muudkii baad weel hoos dhigaysaa. ka bacdina insha Allahu tacaala waxaad samaynaysaa inaad biyo tahliil ku darsatid oo aad habeenkii jidhka oo dhan aad ku maydhatid. waxay anfacaysaa dadka musbiyaanada qaba, dadka sixirka qaba, dadka hurdo la'aanta ay ku dhacdo, dadka hadii jeeraale ka cawda in lagu xadgudbo habeenkii markay seexanayaan ay waxyaabo xun ku riyoodaan oo fiicnayn. sidoo kale markaad ku maydhatid ruqya iska dhigaysanaysaa insha Allah taala. sidoo kale waxa fiican inaad isticmaashid saliidda loo yaqaano xisnul mubaarak, inaad ka daba marsatid. sida haddii qof dumar ay ka cabanayso waxyaabahan soo sheegnay insha Allah taala, ama ninkuba uu ka cabanayo qofku doonaba ahaado, inuu saliidana ka daba marsado insha Allah muddo 7 casha ilaa 21 casha oo isticmaalo. biyihii
markaad ku meedhatid caleentii soo hadhay waad qallaajisanaysaa meel baad dhiganaysaa maalin dambe ayaad ku meedhan kartaa biyo ku ridi kartaa ama intaad tuntid markay qallasho ayaad ka dhigan kartaa bukhur aad isku shidid hoosta ku shidatid iyo gurigaagaba si aad xasharaadka iyo cayayaanka ugu iridid gurigaaga insha Allah taala faa'iidadaas buu leeyahay geedkani wixii inta dheer ee naga baahatid lambarku wuxuu saaran yahay boyga ama xagga sare waad nagala soo hadli kartaa waan kuu sharxi doonaa faa'iidada kale uu leeyahay insha Allah taala